soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah, qalbi furan ku soo dhawaada iyo niyad saafi ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan, waa walaashiin Malka Xasan Maxamed oo idin leh caafimaad iyo barwaaqo ku noolaada. maanta waxaan idiin wadaa qiso aad cajiib u ah. qisadana waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa. gabadhaas nin ayay isjeclaadeen. ninkiina wuxuu ahaa nin xaasle ah. ninkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu gabadhaas ka dhaadhiciyo inay boyfriend isku wada noolaadaan. gabadhiina way ka ogolaatay, laakiin ayagu way isguursadeen oo dad islaami ahaayeen. markay isguursadeen, laakiin gaalada waxay ka dhaadhiciyeen inay boyfriend ahaan ilmaha uu ugu dhali doono. gabadhiina way ka aqbashay. gobolada ka mid ah naagtiisa kale ku nooleed. kadib gabadhii waxay u dhashay 4 ciyaal ah. 4 ciyaal markay u dhashay, ninkii waa isku yar xumaadeen. kadib gabadhii asagoo wax su'aal ay weydiinin, kalsoonida heerkaas la egna gaarsiisay, ayuu meeshii ku furay gabadhii way isku dhex yaacday. kadib maskaxiyan ayay gabadhii u xanuunsatay. markaasuu gaalada intuu u tago wuxuu dhahay ilmihii qoftaan waxeen karto qof xanuunsan waaye. sidii ayuu haddana ilmihii ugu kaxaystay, asagoo aqoonin sidii ilmaha loo xanaaneeyo. oo kaamira guriga loogu xiray, waxaa la arkay kiyo ilmaha garaacayo oo dilaayo. kadib ilmihii waa laga kaxaystay. gabadhii waxay soo istaagtay meel cidlo ah, ilmo ma hayso, ninna ma hayso. dhibaatadaas markay ku dhacday, qof ilaa hadeertaan waxay ku sugan tahay xaalad aan la qiyaasi karin. ilmaheedii waa laga qaatay, ninna ma hayso. waxay noqotay qof si maskaxiyan u xanuunsan. waxaan kula talin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed, Ilaahay subxaanahu wa tacaala sharaf iyo cizo siiyay, inay fiirsadaan ninka ay guursanayaan, ayna ka ogolaanin waxyaabaha qaar. hadeertaan fiiri bal, wuxuu Ilaahay raali ka ahayn waa wuxuu Ilaahay ku xalaalteeyay oo xalaalku ay xaaraan iskaga dhigtay. mustaqbalkaagina saasuu ku baaba'ay, awlaadaadina waad ku weysay. dhibaatooyinkaas iyo dhibaato ka badanba waa iska jiraan. waxaan idin leeyahay foolajignaada gabdhayow, iskana ilaaliya ragga qaar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.